Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaantiin. Fadlan nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay si aad muuqaaladana kale ula socotid. Maanta waxaan ka hadlaynaa ninkii caanimada darteed u geeriyooday. Waa ninkii khatarta raadi jiray laakiin khatartii ayadu ay qabatay. Waxaa aad loo hadlayaa geerida naxdinta leh ku timid ninkii reer Yaman ee lagu magacaabi jiray Spendermankii Yaman. Waa marka ay caanimada iyo khatartu ay isla barbarbaxaan adigana aad dooratid inaad midkood u baxdid. Dunida baraha bulshada iyo riwaayadaha dalka Yaman iyo guud ahaanba caalamka Carabta waxay ku waabariisatay geeri naxdin leh. Waa ninka lagu magacaabo Alqaqa bin Hunter oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo hibadiisa gaarka ah iyo geesinimadiisa dartiis loo aqoonsaday inuu yahay ninka ugu buura fuulka badan dalka Yaman ama dalalka Carabta. Wuxuuna ku geeriyooday shil naxdin leh isagoo ku guda jiray mid ka mid ah caqabadihii ugu adkaa uguna halista badnaa. Geerida wiilkan ayaa dhalisay dareen murugo leh iyadoo dood xooggan ay ka taagan tahay sababta dowladdu ay xil hore u xiri weyday maadaama uu bareerayay khatar muuqata oo sababi kartay inuu geeriyoodo. Haddaba waa kuma Alqaqa bin Hunter ama Spendermankii Yaman? Alqaqa bin Hunter wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Yaman kaas oo muddo kooban kasbaday malaayiin taageerayaal oo ku xirnaa boggiisa Facebook iyo sidoo kale TikTok. Wuxuu caan ku ahaa ciyaaraha buuraha lagu fuulo ee qofku markuu buuraha dhaadheer fuulayo ama darafyada guryaha ama meelaha moolasha ee dheer isagoo aan adeegsaneyn wax qalab ah oo badbaado ah. Sidoo kale ma jirin wax harga ah oo uu xiranayay ama furaasho dhulka loo dhigaya haddii uu soo dhaco si uu dhagaxaanta uga badbaado. Muuqaaladiis waxay soo jiidan jireen malaayiin daawasho ah wuxuuna muujin jiray dheelitirka jirkiisa isagoo gacmo maran ku qabsanaya dhagaxaan jilicsan ama iska laalaadinaya darafyada buuraha ee dalka Yaman oo dabiici ahaan ah kuwo aad iyo aad u adag. Taageerayaashiisa ayaa u arkayay halyey dhiiran halka dadka qaarkoodna ay uga digi jireen inuu maalin ku dhiman doono khatartaas haddii uu sii wado. Musiibada ayaa ka dhacday gobolka la yiraahdo Dardamaad ee dalka Yaman, meel u dhow god weyn oo dabiici ah oo ka dhashay haraaga volkaano qadiimi ah. Godkan oo hoos u qodan 120 mitir wuxuu caan ku yahay darafyadiisa inay yihiin dhagaxaan aad dushooda u siman yihiin ama jilicsan, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah meelaha ugu khatarta badan ee qof uu isku dayo inuu fuulo. Waana 220 mitir ayuu hoos u qodan yahay. Alqaqa ayaa go'aansaday inuu godkan dhexdiisa fuulo oo hoos ilaa kor oo muuqaal cusub kasoo duubo isagoo la wadaagaya taageerayaashiisa. Sida ka muuqatay, dhowr saaxiibadiisa ayaa ka caawinayay inay dusha sare laga duubo muuqaalka iyagoo adeegsanaya taleefanka gacanta. Muuqaalka naxdinta la baahiyay ayaa muujinaya Alqaqa oo maraya meel dhexe oo godka ah isagoo isku dayaya inuu helo meel uu cagaha iyo gacmaha dhigto. Sababo la xiriira daal iyo dhagaxaanta oo dabcay wuxuu si degdeg ah u lumiyay dheelitirkiisa. Inkastoo isku dayay inuu si ba'an u qabsado gidaarka godka, xooggii ayaa ka dhammaaday wuxuuna si toos ah ugu dhacay moolka hoose ee godka ee volkaanada. Dhaawiciisa ayaa la isku dayay in la soo badbaadiyo laakiin isla markiiba waxaa la sheegay inuu halkaas uu ku geeriyooday sababtoo godku waa mool aad u dheer oo sidoo kalena gudaha ay ku jiraan dhagaxaan iyo volkaanooyin iyo sidoo kale dab holcaya mararka qaarkood. Waxaa adkaatay dadka deegaanka iyo kooxaha gurmadka degdega ah inay ku guuleystaan inay si fudud ay kusoo saaraan meydkiisa. Sababta bixinta ayaa qaadatay in ka badan 30 saacadood. Gurmadka ay ku jireen kooxaha sababta bixinta iyo dadka deegaanka u adeegsanaya xargo iyo sidoo kale cagab kale oo loogu talagalay waxay qaadatay 34 saacadood xiriir ah si ay ugu dambeyntii ugu guuleystaan inay soo saaraan meydkiisa. Wayna ku guuleysteen in marxuumka ay soo saaraan iyadoo laga helay godka hoose isagoo oo meyd ah oo qoorta ka go'an, waxaana ugu dambeyntii ku soo xoomay meydkiisa dadka deegaanka uu ku geeriyooday. Geerida Alqaqa bin Hunter kadib boggiisa baraha bulshada iyo bulshada caalamka gaar ahaan reer Yaman ayaa qarqay iyadoo fariimo murugo iyo baroor diiq ah isla wadaageen.
kubanaan taageerayaashiisa ayaa soo bandhigay muuqaaladiisii hore iyo sawiradiisii iyagoo duubaya tacsiyo si ay ugu baryaan naxariista Alle. Qaarkoodna dowladda Yemen ayay ku dhaliilayaan inay ka gaabisay in ninkan ay xabsiga u taxaabto sababtoo ah raadinta caanimada ayaa u keentay halista intaasi le'eg. Si kastaba ha ahaatee, arrintan waxay dhalisay dood culus oo ku saabsan anshaxa iyo badbaadada. Raadinta caanimada iyo fiyuuska. Dad badan ayaa tilmaamay in algorithm-ka baraha bulshada ay ku dhiirigeliyaan muuqaalada khatarta ah si ay u helaan fiyuus badan oo dhalinyaro badan ku riixaya inay noloshooda halis geliyaan si ay u helaan dareenka dadka iyo lacag. La-aanta qalabka badbaado. Khubarada dhinaca buurafuulka ayaa sheegaya in arrintan ay tahay mid aan loo baahnayn in qofku uu fuulo bilaa qalab. Sidaa daraaddeed waxaa laga rabay baraha bulshada hadiiba TikTok iyo Facebook inay ka saaraan haddii arkaan inuu khatartaas u bareerayo oo sidoo kale uu fuulayo isagoo aan wadan wax arga ah, koofiyad iyo sidoo kale qalab ku xiran oo sababi kara in la badbaadiyo. Ugu dambeyntiina, Alqaqa bin Antar wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo hibad dabiici lahaa, balse waxaa galaaftay khatartii uu caanimada ku raadinayay. Waa ninka khatarta u bareeray, laakiin khatartii ay qabatay, balse hibadiisa waxay horseeday dhammaan xanuun dad badan saameeyay. Geeridiisana waxay digniin u tahay dhalinyaro badan oo baraha bulshada kusoo kordhaya, kuwaas oo u arka saameynta falalka halista inay tahay dariiqa kaliya ee lagu guuleysan karo. Nolosha bini'aadamka ayaa ah mid qaali ah. Ciyaaraha iyo sidoo kale caanimaduna waa wax loo baahan yahay, laakiin waxay leeyihiin xad iyo xeerar badbaado ah oo loo baahan yahay in uu qofku mar walba raaco. Dad badan waxay ka caroodeen in ninkaasi dhalinyarada ah uusan wadan wax badbaado ah, isla markaana shaqada uu ku jiray isaga oo kaligiis halgamaya.